arooskii iyo aroosada oo lagu kala magacaabo maxamed maxamuud kaadheeri iyo farxiya cabdi cigaal ayaa qaraxaasi iyaguna ka badbaaday. Zahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirta arooskii iyo aroosada waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen. waxaa ku hormaraysa aroosada Farxiya Cabdi. أبغى أرتقي تانسي عمل أروح الآن أنا مركز واحد عارفة أي مرة هاي واحد سعودي يسافر إلى وأنا واحد سعودي لا يبغى نفكر بالله سعودي هاي مركز عمل أنا وحنا كنا حياة محاضر بحثي محمد بدرق رجع عمل أنا وياه كذا بحي مركز أسمع وش ميله يعني وش محاضر ميل غسل توزع مو خسائر يعني munaasabada aad u joogteen goobta ee arooska noocee ayay ahayd xafladda ma toddoba bixi ayay ahayd waxa shaasaarka loo yaqaan Soomaaliya mise waxay ahayd xafladii guurka ee maalinka koobaad أبغى شاسات أيها waa tahay ma kula joogay saygaaga ها waa wada fadhideen goobta ما يجرب كل شيء من هذا markii qaraxa uu dhacay sidaad sheegtay goobta adiga ku sugnayd ee bamka waxa tiri ma garan karo sida ay wax u dhaceen laakiin waxaan arkay dad farxaday iyo kuwa dhaawaca bal dadkii dhaawacyada uu soo gaaray sharaxaad naga sii waxa soo gaaray أبغى يرد أنا لو soo gaareen أبغى قارة dadka garaaba leeyahay qaarna xoogaa uu isla dad badan weeyna dadka dhaawac ma xaqla alle ma tiran karaan ilaa waa tahay goobta marka qaraxa uu dhacayo maciyaar baa ka socotay mise adiga shaashka lagu saaray ma shaashkaaseen maxamed maxamuud kaadheeri adigu waxa tahay caruuskii Farxiye isguursadeen 7 cisho ka hor 7 bixi arooskaaga ayaana qaraxa uu ka dhacay ma noo sharaxi kartaa ama ma noo sababeyn kartaa sida ay wax u dhaceen horta aniga waxaan joogay goobtii qaraxa ka dhacay waxaana lagu jiray damaashaadkii iyo maxaa jiray sida dhaqamadii Soomaalida ay leedahay markii todobada la gaaro waqtigaas oo dhalinyaro badan meesha isugu joogtay una badnaayeen haween marka adiga waqtiga ay gabagabada tahay inta uu dhowdahay 11 iyo 10 inay tahay aan u maleynayaa waayo waqtiga aad u xasuusto waayo maxdin faran badan ayaa ila soo diristay hal mar waxaan ka hor helnay uuro iyo qaac iyo qaylaha way isqabsatay meeshan taagnaan anigii nafaantida dadkii ugu soo buurteen oo dhulka ay dhisteen kadib baan arkay meelahan wadooyinka dadkii ay fasheen anigii markii aan dadkii macnaha aan ka aansira kala xasilisay oo gurigii aan ka soo xirtay gurigii badanaa dadku ganacsigiisina ka sii baxayeen aan ka soo xirtay baa waxa wardiga xijiyay war hooyada ayaa baashi ku dhacday islaantiina waa hubo markaas kale ayadana sheego soo xarata agtiisa taagnayd markii ayada islaantiina aan garab ku haystaa la yiri hooyada waxa gaareen liirna markaas ugu dambeysay hooyadii wax ka reeb dhaawac hooyada ayaa wixii kugu horeeyay aragtay ahaa maya waa ayada marka la arkay islaan kale dhulka taala aan arkay iyo gabar kale ayadana musqul aan guriga ku jirto ayadana dhaawac aad u gaaray marka laakiin waxa ruuxa hore aan raadinayo wuxuu ahaa hooyada aad ugu naxay la yiri hooyada ayaa dhintay marka hooyo maxaa soo gaaray waxa soo gaaray dib lugta oo waliba meeshan bariidada la yiraahdo iyo madaxa dhaawac waliba bariidada daran waa tahay dadkii kale ku dhaawacmay goobta dhaawacyadu ay soo gaareen tiradoodu meeqay ahayd yaraan horta 20 way gaarayaan inkastoo caruur iyo dumar u badnaayeen oo dhowr wiil ay ku jireen balse waxa aad garaab u ahaa 3 qof waana 2 gabdhood oo mid xaamilo tahay iyo cunug yar 4 jira marka xaaladooda caafimaad dadkaasi halkee ugu badan oo ay wax ka gaareen sideese loo dabiibaya haatan maantii wiilka yar oo 4 jirka iyo maxaa la jiray islaanta xaamilada madaxooda horta kule waan arkay dhaawac uu ku yaalo aad iyo aad dhulka u yaalaan markaas qorwaaba la kala xataa miir iyo tabar ma lahayn wiilkana waxaa la sheegay sidoo kale feeraha inay wax ka gaaraan oo asna maxaa la jiray tuubo la geliyay dhiig laga soo daadiyay gabar kale ayadana feeraha iyo wax ka gaareen iyo garabka hoostiisa meesha kale ka soo Soomaalidu waa tahay Farxiyana waan ku dambeyn doonaa laakiin haddii aan adiga kugu hormaro inkastoo magaalada Muqdisho ay ka dhacaan qaraxyada iyo dilalka rabshaduhuna inta badan koonfurta Soomaaliya ay ka jiraan la xiriira in la beegsado dad meel isugu yimaada arooskaaga maxaad u sababeyn kartaa in loo bartilmaameedsaday ma waxa jira dad ka xumaa arooskiina markii hore ama cid ay xurguf idin dhaxaysayba adiga iyo afadaada midkiinba horta aniga sidaan ogahay afadayda yaani meesha waan ku cusubnahay magaalada waan ku cusubnahay aniga nafaantida haddaan iraadana uma maleynayo qof aan dekana ka galay inuu adduunka saaran yahay balse laga yaabaa meelo fartilmaame in lagu soo raacay
maantii maqaadniyo maxaa dhihi jiray ma saadaalin kara waxa laigu soo maagay iyo laigu soo riday annagoo dad macnaha isheeg farxad ku jiro oo iska isheeg iska dabaaldegin oo farxadeeni u ololeysanayna ayuun baan macnaha marxaladaasna dul qabsatay waxaana leeyahay ninkii macnaha ama qofkii waxaas maaganaa inuu dadkaas maanta u baabi'iyo asaga iyo ilaahay baas arkaayo laakiinse qof maanta arkaysa oo tiri anaa arkaayo meeshaasu taagnaa ama xaggu wax kasoo yiri ma jirto. waa tahay farxiyoy waxaan jeclaan lahaa su-aal aan taasi ka dheerayn inaan ku weydiiyo adigana ma jirtaa cid aad is leedahay way ka dambeeyeen ama aad tuhmayso inay soo weerareen arooskaaga? ma abaayo ma qarnayaan xaafada dhan iyo inay lafta magaalada lafta dhawaan magaalada. dareenkaagu haatan waa sidee? dareenkayga baa maanta waa iska raanay hadda ilaa iyo maanta dareenka dambada waan iska raanay laakiin ilaahay xalan maxaan ku dhaaftaan maxin aad u weyn axmed saarnay. waa tahay ma gurigiinii baad weli degantihiin ood ku nagaadeen? maxamedow beegsiga aroosyada waa arrin ugub ah. dhinaca kale waxaa laga yaabaaba adinka laftirkiina sidaad horey ugu sheegteen in saameyn dhinaca dareenka tan iyo shalay iyo xalay ay idinku yeelatay dhacdadan foosha xun. marka adigu maxaad is leedahay waktigan maskaxiyan ama dareen ahaan waad ka qabtaa falkii dhacay? horta alxamdulilah ilaahay baan u mahadnaqayaa kaasoo dhibkeena ka dhigay mid maanta daawo iyo dabiib leh oo maanta aan u galbanayn maxaa dhihi jiray taxsi ama aas. alxamdulilah teeda kale dareenka haddaan ka hadlo runaantii ilaa iyo shalay waktigii dambe aad iyo aad aan u naxsanaa oo qof hadee waa dareemi kartaa weligiisoon waxyaaba noocaana aan la kulmin waxyaabaha qabsan kara idan haddii aan iraado xagga xasiga aad aan ugu naxsanaa balse wax walba waxaa ka weyn iimaanka oo haddaad alla isku xirto runaantii wax kaa halaabaya ma jiro. alxamdulilah waxaana qatan ilaahay sabriyaa tan iyo tu lamid ah aniga iyo walaalahay inaysan arkin oo ilaahay naga badbaadiyo. waa tahay bal malahaaga ugu dambayntii ma waxaad is leedahay adigaa laguu socday ama qoyskaaga mise waxaa jiray dad kale oo marti sharafa oo xafladda ka soo qayb galay oo aad is leedahay ayagaa lagu raad joogay wax cun la malayn karo ama aad maqasheen? wallahi kulleyba haddeertaan ma dhihi jiray anaa la ii jeeday ma dhihi jiray qoyskaa loo jeeday balse waxaan la isleeyahay waa dad un macnaha rabay in uun dhib meesha ka dhaco. dadkaasna hadee kulleyba ilaah unbaa la xisaabtama ilaah unbaa og anigu ma ogi maantana cidaan dhahayo ma jirto way og tahay ama aan u raadsanayo dadkaasi ilaahay unbaa xisaabtamaya. arooskii iyo aroosada oo lagu kala magacaabo maxamed maxamuud kaadheeri iyo farxiya cabdi cigaal ayaa qaraxaasi iyaguna ka badbaaday. zahra cabdi axmed ayaa qadka telefoonka ee muqdisho kula xiriirta arooska iyo aroosada waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen. waxaa ku horumaraysa aroosada farxiya cabdi. haddaa arta qoysanka camal wax dhaceen ani markii waxaan arkayay malahan waxa la socday wixii saafiran ilaa wana waa xisaaga ilaahay baan qofkaas bila socday wuxuu yahay marka camal anigu waxaan ku naxayaa maxaa qorda bixisay maxinta dad kale iyo camal anigu ayaan ku agaxay markaasna wixii meel aadeen iyo wixii maxaa meel ka soo meel ka saayay macna. munaasabada aad u joogteen goobta ee arooska noocee ayay ahayd? xafladda ma toddoba bixi ayay ahayd waxa shaasaarka loo yaqaano Soomaaliya mise waxay ahayd xafladii guurka ee maalinka koobaad? waa tahay ma kula joogay saygaaga? waa wada fadhideenu goobta? markii qaraxa uu dhacay sidaad sheegtay goobta adigaa ku sugnayd bamka waxaa tiri ma garan karo sida ay wax u dhaceen la yiraahdo iyo madaxa ah dhaawac waliba garboodada daran. waa tahay dadkii kale ku dhaawacmay goobta dhaawacyadu ay soo gaareen tiradoodu meeqay ahayd? yaraan horta 20 way gaarayaan inkastoo caruur iyo dumar u badnaayeen oo dhowr wiil ay ku jireen balse waxaa aad garaab u ahaa 3 qof waana 2 gabdhood oo mid xaamilo tahay iyo cunug yar 4 jira. marka xaaladooda caafimaad dadkaasi halkee ugu badan oo ay wax ka gaareen sideese loo dabiibaya haatan? maantii wiilka yar oo 4 jirka iyo maxaa la jiray islaanta xaamilada madaxooda horta kule waan arkay dhaawac uu ku yaalo aad iyo aad dhulka u yaalaan markaas qorwaaba la kala xataa miir iyo tabar ma lahayn. wiilkana waxaa la sheegay sidoo kale feeraha inay wax ka gaaraan oo asna maxaa la jiray tuubo la geliyay dhiig laga soo daadiyay gabar kale ayadana feeraha iyo wax ka gaareen iyo garabka hoostiisa meesha kale ka soo tiraado Soomaalidu. waa tahay farxiyana waan ku dambayn doonaa laakiin haddii aan adiga kugu hormaro inkastoo magaalada Muqdisho ay ka dhacaan qaraxyada iyo dilalka
rabshaduhuna inta badan koonfurta soomaaliya ay ka jiraan la xiriira in la beegsado dad meel isugu yimaada arooskaaga maxaad u sababayn kartaa in loo bartilmaameedsaday ma waxaa jira dad ka xumaa arooskiina markii hore ama cid ay xurguf idiin dhexaysayba adiga iyo afadaada midkiinba horta aniga sidaan ogahay afadayda iyo ani meesha waan ku cusubnahay magaalada waan ku cusubnahay anigii nafaantayda haddaan iraadana uma malaynayo qof aan dekana ka galay inuu adduunka saaran yahay balse laga yaabaa meelo fartilmaamo in lagu soo raacay maantii maqaadmiyo maxaa dhihi jiray ma saadaalin kara waxa laygu soo maagay iyo laygu soo riday annagoo dad macnaha isheeg farxad ku jiro oo iska isheeg iska dabaaldegin oo farxadeeni oo u ololeysanaynayo baan macnaha marxaladaasaan dul qabsatay waxaana leeyahay ninkii macnaha ama qofkii waxaas maaganaa inuu dadkaas maanta u baabi'iyo asaga iyo ilaahay baas arkaya laakiinse qof maanta hal mar waxaan ka wara helnay uuro iyo qaac iyo qaylo hawada isqabsatay meeshaan taagnaana anigii nafaantayda dadkii igu soo buurteen oo dhulka ay dhigteen kadib un baan arkay meelahan wadooyinahana dadkii ay fasheen haye anigii markii aan dadkii macnaha aan kala xasiray sidoo gurigii aan kasoo xirtay gurigeygii badanaa dadku ganadashadiisina kasii baxayeen aan kasoo xirtay baa waxa war liigu xijiyey war hooyada ayaa baashi ku dhacday islaanteedina waa hubo markaasoo kale ayay ayadana sheeg oo soo xarata agteeda taagneed markay ayada islaanteeda anoo garab ku haystaa la yiri hooyadaa waxa gaareen liirna markaas igu dambeyso hooyadayba wax ka reeb dhaawaci hooyada ayaa wuxuu kugu horreeyay ood aragtay ahaa maya waa ayada mar kale aan arkay islaan kaloo dhulka taalla aan arkay iyo gabar kaloo ayadana musqul guriga ku jirto ayadana dhaawac aad u weyn gaaray marka laakiinse waxa ruuxa hore aan raadinayo wuxuu ahaa hooyada aad aan ugu naxay la yiri hooyada ayaa dhib gaaray marka hooyo maxaa soo gaaray waxaa soo gaaray dhib lugta oo weliba meeshaan bari laakiin waxaan arkay dad firxaday iyo kuwa dhaawaca bal dadkii dhaawacyada uu soo gaaray sharaxaad naga sii waxa soo gaaray dad badan dhaawacyada soo gaareen hadda qaar dadka garaaba la leeyahay qaarna xoogaa uu isku labsan dad badan weeyna dadka dhaawac maxaa la hadlay ma tiran karaan ilaa waa tahay goobta marka qaraxa uu dhacayo ma ciyaar baa ka socotay mise adigaa shaashka lagu saarayay maxamed maxamuud kaadheere adigu waxaa tahay caruuskii farxiyo ay isguursadeen 7 cisho ka hor 7 bixi arooskaaga ayaana qaraxa uu ka dhacay ma noo sharaxi kartaa ama ma noo sababeyn kartaa sida ay wax u dhaceen horta aniga waxaan joogay goobtii qaraxu ka dhacay waxaana lagu jiray damaashaadkii iyo maxaa jiray sidii dhaqamadii Soomaalidu ay lahayd markay 7 la gaaro waqtigaasoo dhalinyaro badanna meesha isugu joogtay una badnaayeen haween marka adiga waqtigii ay gabagabadii tahay inta inu dhowdahay 11 iyo 10 inay tahay aan u malaynayaa waayo waqtigii aad u xasuusto waayo naxdin fara badan ayaa ila soo diristay